xafladan oo ahayd mid xadhigga lagaga jarayay dhismayaal cusub oo uu yeelanayo dugsiga boodhanka ee Cumar Qaadi ayaa waxa ay ka qabsoontay gudaha dugsigaasi Cumar Qaadi ee ku yaala magaalada Cabdulqaadir waxaana deeqda lacagta ay gashay dhismayaashan musqulaha soo bixiyay ururka Marmar International Charity oo ah urur samafala oo ay ku midaysan yihiin qurba joogta nawaaxiga deegaanka Cabdulqaadir waxaana madashaasi ka hadlay maamulaha dugsiga boodhanka ee Cumar Qaadi Cumar Cali Colow iyo gudoomiyaha ururka Liibaan ee gacanta ku haya dugsigaasi boodhanka sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay wakiil ka socda ururka Marmar International Charity Xasan Guban Lale iyo qaar ka mid ah cuqaasha iyo ururada haweenka ee magaalada Cabdulqaadir kuwaas oo dhamaantood aad uga mahad celiyay waxqabadka baaxadda leh ee aan kala go'al lahayn ee ururka Marmar International Charity uu ka wado deegaanadooda haddaba waa kuwan dadkii madashaasi ka hadlay hadaladoodii Xasan Muuse ah jooga halkan maanta xafladan kana wakiila ururka International Marmar Charity inta kadib maanta waxaan halkan u joognaa inaan furno gurigan iga dambeeya oo ah musqulo ama kabineeyo taasoo dhismihiisu socotay 2 bilood hirgeliyeenna ururka International Marmar International Charity wakiilka kaasoo ku baxday lacagta ku baxday tahay 5,525 ilaahay baa mahad iska leh waxaa la iska leh horta ururka Liibaan oo keenay fikradan ubadkan halkan lagu hayo waxa weeye waxa kale oo mahadaan u celinaynaa kuwa ka soo qayb galay ee ka damqaday dhibaatada ay ku hay jirtay caruurtu oo ahayd inay dooxaas ay mar kasta u kaadi tagaan amba hadday meedhanayaan iyo haddii maaragtay ay xaajoonayaan soo fuliyay u dhisay aqalkan oo furi doono oo darki doontiin quruxdiisa ayaan marka labaad u mahad celin ubadka sidii raggii hore ay u sheegeen cid gaar ah ma jirto ummadaas ay u dhaxeeyaan waxa la doonayaa nin walba inuu soo gargaaro aan kala codsi u dirayna dawladda Soomaaliland haddii aan ka wakiilahay anigu ururka International Marmar dhismaha hirgeliyay waxaan u diraynaa baaq dawladda Soomaaliland waxaan ugu diraynaa dadweynuhu wixii qabsadeen way qabsadeen reer Cabdulqaadir quruxda dadkiisa sameeyay waxaan leenahay qaybtii aan ku lahayn dawladda Soomaaliland ay ku lahaa iskoolkani ama boodhankani inay iyaduna ay ka soo qayb gasho wax ka qabato oo ay ku darto hadday budget tahay iyo haddii ay tahay maaragtay dhismaba boodhadada kale ee ka dhisan gobolada kale sida ay u hayso kana ay ugu qayb gasho magaalada Cabdulqaadir oo aan ka furnay xafladii furitaanka dhismihii ay hirgeliyeen Marmar International Charity waxa weeyaan waanu mahadnaqaynaa walaalahayaga Marmar International Charity oo ka soo geystay gacan una soo wakiishay Xasan Muuse Cofle waxa weeyaan waxaan soo marnay boardingkan oo caruurtan aan heerar kala duwan la soo marnay waxaan soo marnay inaan waab ka soo asaasno waxaan soo marnay dhismo kale oo gaar ah halka ka muuqda waxa kale oo aan dana soo marnay inaan la dhisay maxay ahayd qoy meeshii ay seexanayeen maantana waxa la noo dhisay oo aan laga la furayaa musqulihii oo ay noo hirgeliyeen ururka Marmar International waxaan ogeysiinaynaa dawladda iyo cidii kale danaynaysa in wax ka qabato barnaamijka boodhanka ee xaggan ka hirgalay muddada 5 sano ka socda inay ku soo darsadaan wax badan ayaa dhiman daamar cuntadii la galgalanayno hurdadiina aan la galgalanayno wadno muxuu ahaa musquladiina loo waxeeyay dayr oo kale uu dhiman yahay haddaan muxuu ahaa xaggan dawladda kala hadalo waxa kaloo dhiman in miisaaniyadii
ay u xaq lahaayeen boodhanadu loogu daro. waxaan kaloo aad iyo aad uga mahadnaqaynaa ciddii soo maalgelisay Marmar International Charity. waxaa hirgeliyey marka koowaad waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay baan u mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa ururka liibaan ee hawshan asaaskeedii koowaad soo hirgeliyey. marka saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa ururka Marmar International ayaan u mahadnaqaynaa. waxa weeye halkan waxaan kaga hadlaynaa xafladda ballaaran ee boodhanka Cabdulqaadir Cumar Qaadi. waxa weeye ururka liibaan horta Allah la jiro aad iyo aad Allah la jiro ubadkayaga soo barbaaray ee ku jooga halkana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan ku mahadnaqaynaa macallimiintayada tayo gelisay ee wax dhigaysa ee jilib dhigaysa had iyo jeer tamaashiirta. isku soo wada duub oo aasaaska dugsiga boodhanka ee Cumar Qaadi ayaa waxaa fikradeeda lahaa dhalinyaro aqoon-yahano ah oo ka soo jeeda deegaanka Cabdulqaadir, waxaana haatan dugsigan boodhanka oo maraya meel wanaagsan. waxayna cuqaashta iyo waayeelka halkaasi ka hadlay ay ka codsadeen wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inay ugu darto miisaaniyadda ay leeyihiin boodhanadu dugsigoodan. waa Cabdimajid Ibrahim Muumin, Ariel TV, Xariira.